kusoo dhawaada janalkeena Abga Media. Fadlan haddana u subscribe kumbalkan furasi kusoo gaaro muuqaal weyn soo geliyo. waxaa jiri jiray nin boqor ah oo aad u fiir badan, laakiin wuxuu lahaa nin wasiir ah oo aad u aqli badan oo talooyin aad wanaagsan uga afgarin jiray. Wasiirka badanaa lagama agweyn jirin boqorka, hadduu safar yahay hadduu joogaba wuxuu wasiirku lahaa reebal qabsi ah oo uu joogto u isticmaali jiray, waxayna ahayd asaa khayran oo micnaheedu tahay in khayr tahay ayaa dhihi karta. Maalin maalmaha ka mid ah boqorkii waxa uu soo gaaray dhaawac oo far baa ka go'day. Wasiirkii wuxuu yidhi alqabsigii in khayr tahay ayaa dhihi karta. Boqorkii aad ayuu hanaaqay oo wuxuu codsaday in wasiirka habsi la dhigo. Wasiirkii wuxuu mar keliya haddana yidhi in khayr tahay ayaa dhihi karta. Wasiirkii habsiga ayaa loo tahaabay, boqorkiina wasiir kale ayaa qoortay. Muddo kadib boqorkii wuxuu u bahay ugaarsi, wuuna ka fogaaday hawadka isagoo ugaar raadinaya, wuxuuna ka lumay dadkii la socday. Isagoo lunsan ayaa waxaa gacanta ku dhigay qulo awaan ah oo qaaqaawan oo dhagahaan aabudo. Markii ay arkeen boqorka gurihiisa iyo sida uu u labisan yahay iyo farasta uu fuulo, waxay go'aansadeen inay sanamkoodu ugu gowracaan oo gurbaan ugu dhigtaan. Asigoo mindidii loo faysanayo ayaa waxaa la arkay inuu far laayahay, waxayna go'aan ku gaadheen inay iska fasaxaan maadaama farta ka go'an darteed ay nuqsaan tahay, una qalmin sanamkooda in lagu dhowaado qof aanan dhammaystirnayn. Boqorka markii la sii daayay wuxuu soo xasuustay hadalkii wasiirka, wuxuuna go'aan ku gaaray marka magaalada ku laabto inuu habsiga ka sii dayn doono. Boqorkii dib ayaa laga helay, magaaladii ayayna ku soo laabteen, wuxuuna amray in wasiirkii habsiga ku jiray la keeno. Boqorka wuxuu wasiirka ku yidhi, maalintan ayaan ogaaday in fartiigu kuu jirtay khayr iigu jiray, laakiin adiga khayrka kuugu jiray in habsi lagu dhigo, bal ii sheeg. Wasiirkii wuxuu ku jawaabay, khayr ayaa iigu jiray sababtoo ah mar kastoo ugaar u bahdid kaama hadhi jirin. Haddii aan maalintaas isla socon lahayn oo aan isla dhumi lahayn, aniga ayaa la gowri lahaa. Qadarta alle oo ku sabirta waa wax aad u wanaagsan, laakiin waxaa ka qiimo badan inaad khayr u aragto dhib walba oo ku soo gaaro. Ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi, waxaa dhihi karaa in waxa aad neceb tihiin idin yahay khayr, waxa aad jeceshiinna idin yahay shar. Waxa sharka idin ah iyo waxa khayrka idin ah alle ayaa og, ee idinku waxba kama ogin. Qadarta Rabbi oo la rumeeyo waxay daawo u tahay udur badan oo dunida jahwareeriyey, waxayna ka hortag u tahay udur badan oo iyagana xakamayntooda lagu wareersan yahay.